Ku soo dhawaada channelkeena Sheekh. Halkan waxaad ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay tiknoolajiyada, taariikho iyo casharo fudud. Si aynu ku dhaafin muuqaalada aynu soo dhig. Daawad waxa sharaf leh kaaga codsanaynaa muuqaalka subscribe noo saarto, like, share waxay noo tahay dhiirigelin. Muuqaalka maanta ee adduunka ma kii aad taqaanay 10 sano ka hor. Isbedelada waaweyn ee ku dhacay dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo awoodaha military waxay dunida u horseedeen waji cusub. Dadka falaqeeya siyaasadda caalamka waxay isku raacsan yihiin hal arrin. Waxaynu ku jirnaa bilowgii dagaalkii qaboobaa ee cusub. Haddii qarnigii 20aad lagu xusuusto loolankii dhexmaray reer galbeedka iyo midowga Sofiyeedka, maanta xiriirka caalamiga ah waxa udub dhexaad u ah tartanka duwamidaas. Waa loolan toos ah u dhaxeeya labada quwadood ee u dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada waaweyn adduunka, dowladda Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha. Si aan u fahamno halka wax walba ay ka bilowdeen, waa inaad dib ugu laabanaa dabayaaqadii qarnigii 20aad. sanadka markuu ahaa 1978 Shiinuhu wuxuu qaaday go'aan bedelay taariikhda. Hogaamiyihii weynaa ee la oran jiray Deng ayaa furay dhaqaalaha dalkiisa, asagoo caalamka u sheegay in Shiinuhu diyaar u yahay ganacsi suuq ee xur ah. Reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxay u maleeyeen in haddii Shiinuhu hodan noqdo uu qaadan doono nidaam dimuqraadiyadda ee reer galbeedka. Laakiin taasi ma aysan dhicin oo Shiinuhu wuxuu adeegsaday lacagtii ka soo gashay ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah si uu u dhiso cutub military iyo mid tiknoolajiyadeed oo maanta u hanjabayso hoggaanka Mareykanka. Markii uu xukunka la wareegay madaxweynaha Jinping sanadka markuu ahaa 2012, wuxuu ku dhawaaqay riyada Shiinaha oo loo yaqaan The Chinese Dream, barnaamij ay ujeedadiisu tahay in Shiinuhu dib u soo ceshado booskiisii uu dunida ku lahaa 100 sano ka hor. Tanina waxa ay ruuxday Washington. Mareykankana wuxuu xaqiiqsaday in Shiinuhu uusan ahayn saaxiib ganacsi, beddelkeedu uu yahay tartamo halis ah oo raba inuu bedelo nidaamka adduunka ee uu Mareykanku dhisay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Maantana loolankani wuxuu u kala jabay cutubyo waaweyn oo saameynaya 6 qaaradood ee adduunka. Su'aasha taagan ayaa waxay tahay, ma mid horseedi doona iska horimaad toos ah oo waxyeeleeya nabadgelyada caalamka, mise waa tartan dhanka awoodda oo keenaya isbeddelka dhanka hoggaanka adduunka? Muuqaalkan waxaa si qoto dheer ugu falaqeyn doona asalka khilaafkan iyo sida loolankani uu u saameynayo noloshaada iyo mustaqbalka adduunka. Si aan u fahamno loolankan, waa inaan marka hore eegnaa halka uu salka ku hayo. Loolankan si cad wuxuu ugu muuqdaa inuu yahay mid dhaqaale. Sanadihii ugu dambeeyay Shiinuhu wuxuu noqday dalka ugu warshadaha badan adduunka, isagoo lacag balaayiin dollar ah ku bixiyay mashruuca Belt and Road Initiative oo loo yaqaan jidka xiriirka cusub. Mashruucan wuxuu Shiinaha u sahlay inuu dhiso dekedaha, wadooyinka iyo jidadka tareenada ee qaaradaha Afrika iyo Aasiyaba. Tanina waxay meeshii ka saartay saameyntii dhaqaale iyo hay'adihii lacagta ay kaligood lahaayeen reer galbeedka sida Bangiga Adduunka. Laga soo bilaabo xilligii Donald Trump ilaa maamulkii Joe Biden, Washington waxay bilowday inay soo rogto canshuuro culus oo xadidaya alaabta Shiinaha. Waxay sidoo kale dhiirigelinaysaa shirkadaha waaweyn sida Apple iyo Intel in warshadahooda ka soo raraan Shiinaha una soo raraan wadamada Mareykanka saaxiibaha la ah sida Vietnam iyo India. Kani waa dagaal dhaqaale oo dhab ah kaasoo saameyn ku yeesha qiimaha badeecada ee adduunka oo dhan. Qarnigii 20aad, boqortooyooyinka adduunka waxay ku dagaalami jireen shidaalka, laakiin qarnigii 21aad, kheyraadka ugu muhiimsan waa mid aad u yar, haddana aad u awood badan. Waa looxa yar oo loo yaqaano semiconductor microchip. Qaybtan yar ee silicon-ka ah waa maskaxda ka dambeysa wax kasta, laga soo bilaabo telefoonka gacanta iyo baabuurta korontada ku shaqeeya ilaa diyaaradaha dagaalka ee casriga ah iyo hubka hagidda gantaalada nuclear-ka ah. Maanta jiibiska ugu horeeya adduunka waxaa soo saaray hal shirkad oo kaliya oo ku taalo jasiiradda Taiwan oo loo soo gaabiyay magaceeda TSMC. Tanina waxay Taiwan ka dhigaysaa barta ugu khatarta badan ee khilaafka caalamka. Washington waxay ogtahay in haddii Beijing ay la wareegto warshada jiibiska ee Taiwan, in Shiinuhu si degdeg ah u curyaamin karo dhaqaalaha tiknoolajiyada adduunka, isagoo Mareykankana kaga horay karo dhanka militariga. Marka laga soo tago qalabka hardware-ka, waxaa jira tartan weyn oo lagu hogaaminayo barnaamijka software-ka, gaar ahaan sirdoonka gacanta ee artificial intelligence-ga. AI-ga maahan oo qura aalado la weydiiyo su'aalo ama sameynta fanka digitalka ah. AI-ga wuxuu dib u qorayaa xeerarka amniga qaranka. Qaran kasta oo marka hore hanta AI-ga wuxuu yeelan doonaa awood uu ku toosiyo dagaalka internetka, kuna wanaajiyo silsiladda dhaqaalaha, kuna geeyo guddooyin diyaarado iswado oo aan duuliyo lahayn goobta dagaalka.
dowladda Mareykanka ayaa hadda hormuud ka ah horumarinta barnaamijyada casriga ah, laakiin Shiinaha ayaa si weyn u soo dhaweynaya asagoo ku bixinaya boqolaal bilyan oo dollar kana faa'iideysanayo tirada dadkiisa si uu u soo ururiyo xogo aad u weyn oo aan caadi ahayn si loo gaabiyo hiigsiga Shiinaha. Dowladda Mareykanka waxay soo rogtay xanibaadyo adag oo dhanka dhoofinta ah, ayadoo u diiday in shirkadaha Shiinaha ay iibsadaan qalabka Mareykanka ee lagu sameeyo jibiska. Shirkadaha waaweyn sida Huawei ayaa laga mamnuucay shabakadda 5G-ga ee reer galbeedka sababo la xiriira cabsi laga qabo sirdoonka. Si uu uga arguto, Beijing waxay xadiday isticmaalka tiknoolajiyada shisheeye ee xafiisyada dowladda, waxayna dardargelisay qorshaheeda ee ku noqon karto mid isku kalsoon. Adduunka dhijitaalka ah wuxuu u kala jabay laba qaybood: nidaam internet ee reer galbeedka ah iyo nidaam internetka ee Shiinaha. Daahas birta ah ee dhijitaalka ah wuxuu ku qasbayaa adduunka intiisa kale inay doortaan tiknoolajiyad ay ku aaminayaan maamulka bulshada. Ayadoo siyaasiyiinta ay khudbado jeedinayaan, haddana dagaalka aamusnaanta ayaa ilbiriqsi kasta laga dhex dagaalamaa booska internetka. Malaayiin weerar oo dhanka internetka ah ayaa la dhex mariyaa xarkaha internetka ee badda hoosteeda, kuwaasoo lala beegsado kaabayaalka muhiimka ah. Hay-adaha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa inta badan dejiyay qayladhaan ku saabsan kooxaha jabsata ee taageerta dowladda oo dhex gelaya shabakadaha korontada, nidaamyada biyaha iyo xogkeediyaha shirkadaha si ay u xadaan hantida aqooneed. Beijing waxay diiday sheegashooyinkaas iyadoo farta ku fiiqday in Washington ay leedahay shabakado sirdoon oo caalami ah ee ugu horumarsan adduunka. Goobtan dagaalka ee aan muuqan, hal xariiqood oo xaasid ah wuxuu qaranka u geysan karaa waxyeello ka weyn midda babgacmeedka ay geysato. Loolanka kaliya kuma eka dhulka, ilaa xitaa wuxuu fisan yahay hawada sare. 6 sano kadib tartankii ugu horeeyay ee hawada sare, Mareykanka iyo Shiinaha waxay ku tartameen dhismaha saldhigga ugu horeeya ee jooga dayaxa, ayagoo si gaar ah u haminaya cadowgooda koonfureed ee dayaxa, halkaas oo baraf biyo ah uu ku jiro. Darlaadyaduna waxay noqdeen indhaha iyo dhegaha ciidanka casriga ah. Labada qubadood waxay si firfircoon u horumariyeen hubka dhanka satellite-yada, laserka iyo baabuurta xawaaraha aad ku sareeya oo habarsoonika ku shaqeeya, kuwaasoo awood u leh inay tiraan isgaarsiinta cadowga inta lagu guda jiro iska horimaadka. Si loo xakameeyo cudurda militari ee Shiinaha ee sii koraysa, Washington waxay dib u qaabaysay isbahaysiyadeedii caalamiga ahaa. Heshiiskii taariikhiga ah ee loo yaqaan AUKUS oo dhex maray Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia ayaa u sahlay Australia inay markeedii ugu horeysay hesho maraakiibta quusta ee ku shaqeeya tamarta nuclear-ka. Dhanka kale, gaashaanbuurta NATO waxay markeedii ugu horeysay taariikhda u aqoonsatay Shiinuhu inuu caqabad ku yahay dhanka amniga. Beijing waxay isbahaysiyadan u aragtaa isku day toos oo reer galbeedka ku doonayaan inay ku hareereeyaan kuna go'doomiyaan. Waxayna dhankeeda xoojisay xiriirka militari ee la leedahay Ruushka, Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, ayadoo dhisatay isbahaysi ka soo horjeeda nidaamka reer galbeedka. Mid ka mid ah goobaha ugu dhow oo dagaalka tooska ka qarxi karo waa badda Shiinaha ee koonfureed. Taasi waa marag ganacsi ee sanad kasta ay dhex marto badeecooyin qiimahooda oo ka badan yahay 5 trilyan oo dollar. Shiinuhu wuxuu sheegtay laanshaha ku dhawaad dhammaan badda, asagoo dhisay jasiirad macmal oo ku dhex sameeyay saldhig militari. Laakiin Mareykanka iyo xulafadiisa waxay halkaas u arkaan biyo-mareen caalami ah. Diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee labada qubadood waxay maalin kasta isku jiraan masaafo aad u khatar ah. Hal qalad oo yar amba isku dhac dhex mara laba markabood oo kaliya ayaa sababi karo dagaal caalami ah. Haddii badda Shiinaha ee koonfureed ay tahay barta khilaafka, jasiiradda Taiwan waa wadnaha iyo halbowlaha loolanka. Beijing waxay u aragtaa in Taiwan ay tahay gobol ka go'ay oo iyada dhulkeeda ka mid ah. Madaxweynaha Xi Jinping wuxuu marar badan sheegay in dib u midinta Taiwan ay tahay mid qasab ah, xitaa haddii awoodda militari loo adeegsado. Mareykanka, inkastoo si rasmi ah u aqoonsan yahay hal Shiine, haddana sharciga Mareykanka wuxuu ku qasbayaa in Taiwan uu ka caawiyo difaaceeda. Tanina waa halka ay ka jirto khatarta ugu weyn ee qarnigan. Miyuu Shiinuhu weerari doonaa Taiwan, mise Mareykanka ayaa si toos ah u dhexgelaya? Jawaabta su'aashan waxay go'aamin doontaa mustaqbalka nabadgelyada caalamka. Loolanka u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka kuma koobna oo qura badaha Aasiya ee wuxuu si toos ah u saameynayaa qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka istiraatiijiga ah ee Geeska Afrika. Djibouti waxay tusaale u tahay loolankan, ayadoo ah meesha kaliya ee caalamka ay ku wada yaalin saldhigga militari ee ugu weyn Shiinaha uu ku leeyahay dibadda iyo saldhigga rasmiga ah ee Mareykanka uu ku leeyahay Afrika. Shiinuhu wuxuu noqday saaxiibka koowaad ee ganacsiga iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee Afrika, halka Mareykanka uu diiradda saaro gargaarka, amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Wadamada Afrika oo Soomaaliya ku jirto waxay wajahaysaa culays weyn oo ah
inay u kala heliyaan labada quwadood ayadoo mid kasta uu rabo inuu maamulo marinada muhiimka ah sida Baabilmandab iyo Badweynta Hindiya. reer galbeedkuna wuxuu inta badan ku eedeeyaa Shiinaha inuu adeegsado dabin deyn trap diplomacy isagoo dalalka soo koraya siinayo deymo aad u waaweyn oo ay adag tahay inay iska bixiyaan si uu hadhow u adeegsado dekedahooda iyo kheyraadkooda dabiiciga ah. si kastaba ha ahaatee hogaamiyaal badan oo Afrikaan ah ayaa aaminsan in Shiinuhu uu keeno mashaariic horumarineed oo dhab ah oo aanan wadanin wax shuruud ah, halka Mareykanka iyo hay'adaha reer galbeedka ay inta badan ku xiraan lacagaha saacidaadda arrimaha la xiriira qaab dhismeedka dawladda. tartankan wuxuu Afrika siiyay fursad ay ku korkortanto, laakiin haddii uu qorxo dagaal toos ah qaaradda Afrika waxay noqonaysaa dhibanaha koowaad ee caalamka oo idil. maanta adduunka uma qaybsana sidii qarnigii 20aad ee labada nidaam ee fikrad kasta isku diidan, waayo Shiinaha iyo Mareykanka si weyn ayay isugu xiran yihiin dhanka dhaqaalaha. go'aanka ugu dambeeya maahan ciddii guuleysata ee waa sidii labadan quwadood u maareyn lahaayeen khilaafkooda si loo baajiyo dagaalka saddexaad ee adduunka baabi'iya. adduunku wuxuu u guurayaa nidaam cusub oo awood u qaybsato laba dhinac oo loo yaqaano multipolar world. awoodda ugu weyn ee Mareykanku adduunka ku maamulo maaha diyaaradaha dagaalka ee waa awoodda lacagta dollarka. dollarkuna waa lacagta rasmiga ee lagu iibsado shidaalka iyo ganacsiyada caalamka intooda badan. si kastaba ha ahaatee, Shiinuhu wuxuu horkacayaa kacdoonka weyn ee lagu magac daray de-dollarization ama ka fogaanshaha dollarka isagoo adeegsanayo isbahaysiga BRICS. Shiinuhu wuxuu bilaabay in shidaalka uu ka iibsado wadamada Khaliijka iyo Ruushka isagoo adeegsanayo lacagtiisa yuan. haddii uu Mareykanku waayo maamulka lacagta adduunka, dhaqaalihiisuna wuxuu wajihi doonaa burbur weyn, waana sababta ay Washington ugu aragto arrintaas mid masiiri ah. laakiin dagaalka dhaqaale ee maanta wuxuu leeyahay weji kale oo qarsoon, waana dhagaxaanta iyo macdanta naadiriga ah ee loo yaqaano rare earth element. macdanahani waxay muhiim u yihiin samaynta batariyada baabuurta korontada, marwaxadaha dabeysha iyo xitaa qalabyada ciidanka. Shiinuhuna wuxuu maanta gacanta ku hayaa in ka badan 70% macdanaha naadiriga ah ee adduunka laga soo qaado. tanina waxay la micno tahay in Beijing ay awood u leedahay inay cunuqabateen saarto warshadaha reer galbeedka waqti kasta oo ay doonto. Mareykanka wuxuu hadda si degdeg ah u raadinayaa xulafo cusub oo ku yaala Afrika iyo Latin America si uu u helo macdanahan, asagoo isku dayaya inuu ka baxo ku tiirsanaanta Shiinaha. shirkadda TikTok ee laga leeyahay Shiinaha waxay noqday barta ugu weyn ee dhalinyarada adduunka wararka ka qaataan. Washington waxay si cad u sheegtay in TikTok uu yahay hub sirdoon ee Beijing ku adeegsan karto inay maamusho maskaxda iyo ra'yiga dadweynaha. dagaalka dhanka macluumaadka ah wuxuu keenay in labada dhinac ay u adeegsadaan warbaahin iyo kooxaha internetka si ay u faafiyaan warar lagu daciifinayo kalsoonida shacabka ee ku qabaan dawladda ka soo horjeeda. ugu dambeyn, kani waa dagaal u dhexeeya laba nidaam oo kala duwan oo ku saabsan sida dunida loo maamulo. Mareykankuna wuxuu xayeysiyaa nidaamka dimuqraadiyadda, xorriyadda hadalka iyo suuqa xorta ah. dhanka kale, Shiinuhu wuxuu muujinayaa nidaamka dhexdhexaadka ah oo ku jira maamulka adag, laakiin keenaya horumar dhaqaale oo degdeg ah iyo xasilooni. wadamada soo koraya ee caalamka waxay maanta adeegsanayaan laba nidaam, oo waxay dooran doonaan xorriyadda reer galbeedka oo inta badan dhibaatooyinka siyaasadeed wadata, mise horumar degdeg ah ee Shiinuhu u baahan yahay in xorriyadda loo horo. tanina waa su'aal qaabeynaysa dowladnimada qarniga 21aad. khatarta ugu weyn maahan ciddii guuleysata ee waa khatarta in khilaafkan uu isu bedelo dagaalkii saddexaad ee adduunka, kaasoo baabi'in doono bini'aadamka maadaama labada dhinac ay haystaan hubka nukliyeerka. adduunka maanta wuxuu u guurayaa nidaam cusub oo awoodda u qaybsato laba dhinac oo loo yaqaano multipolar world. waad ku mahadsantahay inaad la qaadatay waqtigaada muhiimka ah. fadlan ha iloobin inaad subscribe dhigto, gambalelkan furo si aad u hesho muuqaalada xiga. maxay tahay fikirkaada? ma u malaynaysaa in Shiinuhu uu ku guuleysan doono Mareykanka, mise adduunka iskaashi ayaa u haray? fikradaada noogu reeb qaybta faallooyinka ee commentiga. nabadgelyo.